بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صحابتان برها بلشد يوتيوب كان كصاحبني halkaad nagala socotaan waa janalka Shariif Seerabta waa laba idin la wadaaga dhacdooyinka ka dhaca Bollywood ka haatana waxaan ka sheekeyn doonaa taariikh nololeedka aktarka caanka ah Ram Charan daawada Ram Charan waa 33 sano jir dadka filimada ku taqasusna waxay ku tilmaameen inuu yahay mustaqbalka xidigii ugu wanaagsanaa ee soo mara koonfurta India ee reer Telugu Ram Charan mar waraysi laga siinay shirkadda lagu magacaabo Janaya Express ay wuxuu sheegay in noloshiisa marxalado kala duwan ay soo martay balaan aragna marxaladaha kala duwan noloshiisa xidigan uu la soo maray iyo dhibaatooyinka uu kala kulmay fanka markii uu ku soo biiray barnaamijkan ayaad ku ogaan doontaan taariikhda aktarka Ram Charan daawadayaal haddii aan ka hadalno dhalashada xidigan waxa uu dhashay 27 Maarso 1985 waxa uu ku dhashay magaalada Janaya xidigan waxa dhalay aabba caan ah mega starka Telugu Jaranjeevi hooyadiisna waxa lagu magacaabaa Sureeqa xidigan waxa uu ku nool yahay magaalada Hyderabad oo uu kula nool yahay familkiisa baaxadda weyn la gaar ahaan hooyadiisa iyo aabihiis kuwaas oo caan ka ah koonfurta India oo dhan xidigan iyo familkiisa ayaa taariikh weyn ku leh shirkadda Telugu iyadana waxyaabo fara badan lagu xasuustay inuu taariikh ahaan sameeyay aabihiis Jaranjeevi daawadayaal xidigan lagu magacaabo superstar Ram Charan familkiisa oo dhan waxay u badan yihiin shirkadda reer Telugu waxaana adeer u ah nimanka lagu magacaabo Pawan Kalyan Nakandara Babu iyo Alu Arvind xidigan waxa kaloo la sheegay in ilmo adeero ay yihiin labada xidig iyana si aad ah loogu jecel yahay reer Telugu Alu Arjun iyo xidigka kale ee lagu magacaabo Alu Sayrish daawadayaal Ram Charan waxa la dhashay laba gabdhood gabadha koowaadna waxa lagu magacaabo Shushmita halka gabadha labaadna iyana lagu magacaabo Sureja xidigan waa xidig taariikh ku leh asaga iyo aabihiis reer Telugu aad bayna u jecel yihiin inta badanna waa ay xushmeeyaan Ram Charan 2007 asagoo 22 jir ah ayuu wuxuu ku soo biiray shirkadda Telugu waxa uuna keenay filimkiisii koowaad ee lagu magacaabo Jurada filimkaasina waxa director ka ahaa directorka weyn ee lagu magacaabo Puri Jagannath filimkaasna waxa uu noqday filim hida dadkoo dhanna waa ay daawadeen daawadayaal xidigan culays weyn ayaa saarnaa maadaama superstarka loogu jecel yahay reer Telugu Jaranjeevi uu aabba u ahaa laakiin Ram Charan waa uu dadaalay oo sharafta aabihiisa dhulka ma uusan la gelin sababtoo ah filimkiisii koowaad oo uu keenay xidigan hid ayuu noqday wuxuuna saarnaa 50 maalmood oo xiriir ah tiyaatarada India oo dhan iyo reer Telugu daawadayaal intaasi wixii ka dambeeyay Ram Charan waxa uu noqday xidig caan ah dadkoo dhanna ay wada jecel yihiin waxaana laga jeclaaday koonfurta India oo dhan xitaa dhalinyarada sanadkaasi jirtay waxay ku waashan xidigan Ram Charan waliba ayagoo si taageero weyn u ah daawadayaal Ram Charan sanadkii 2009 waxa uu keenay filimkiisii labaad filimkaasi waxa lagu magacaabay Ragadera filimkaasna waxa director ka ahaa directorka caanka ee lagu magacaabo SS Moli oo si aad ah loogu xushmeeyo reer Telugu filimka Ragadera waxa uu noqday filim ka caawiyay aktarkan inuu noqdo nin caan ah maadaama filimkaasi lagu turjumay luqado fara badan oo ay ka mid tahay luqadda Tamil Malayalam iyo luqadda kale Hindiga filimkani waxa uu noqday filim hit classic ah ama all time blockbuster oo ah blockbuster waa tirajo mid ugu sareysay filim uu gaaro daawadayaal filimka Ragadera waxa uu noqday filim hida xidigan si weyn ayuu ugu soo baxay xidigan ayaa waxa la sheegay inuu abaalmarino fara badan uu ku helay filimkan siiba abaalmarinta lagu magacaabo Filmfare Award oo ay bixiso shirkadda reer Telugu filimkan ayaa waxa la daawanayay tiyaatarada India 100 maalmood filimkani waxa lagu lacageeyay 36 karoor qiimahan qarash noocaas ayuu cunay waxa uu soo xareeyay saami lacageed gaaraya 150 karoor sidaasna waxa ay kaliftay xidigan inuu abaalmarintaas ku guuleysto filimkana uu noqdo filim hida interest hit daawadayaal Ram Charan oo magaciisa cirkaas sii maray ayuu mar qura waxa uu la kulmay guul daro kadib markii 2010 uu keenay filimkiisa Orange filimkaasina khasaare weyn ayuu xidigan kala kulmay laakiin dadka intooda badan waxayna ku amaaneen qaabjiliinkiisa wacan oo uu filimkaasi ku soo bandhigay xidigan lagu magacaabo Ram Charan daawadayaal xidigan taariikhdiisa inta kaliya kuma soo koobi karno balse barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan halka aad nagala socotaan waa janalka Shariif Seerabta akhyaarta Shariif Seerabta isku duuban oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh inta barnaamij noocan oo kale aynu ku kulmi doono waxaan idin leenahay kulanti dambe oo xiiso leh